السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن دمان صاحبada qiimaha badan ee ku xiran channelka Samne Kasta Official fadlan hadii ay tahay markuu horeysa channelka soo boqotana subscribe noo saar kambalelkana furo si markasta ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan kana ku soo gudbino hadii aad hore noo joogtana muuqaalka like noo saar sidoo kalena si share gare si uu muuqaal ku gaaro saaxiibadan ay nagu soo biiraan channelka ana ku maasantahay barnaamijkana maanta waxa ku soo qaadanayna aflaam xiiso badan oo markaa la daawan doono asbuucan fadlan ugu soo haya ee 3 December filmahaas waxaa lagu wareeyay filimka lagu magacaabo 18 pages oo markaa hogaamiye ka yahay Nikhil Sidaad iyo sidoo kale waxa soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Avatar The Way of Home oo markaa laga leeyahay dhankaasi Hollywoodka isla fiirin doona waa markaa akhbaaraadka ugu weyn marka fanka ay haysto sidoo kale international suuqa marketka sidoo kale filimka waxa laga daawan doonaa Hindiya oo markaa iskoro waaweyn filimka ka dhigaya labada maalin ugu horeysa hadii aan ku hormarno filimka lagu magacaabo 18 pages oo markaa hogaamiye ka yahay Nikhil Sidaad sidoo kale waxa ku weeyay xiddigtan lagu magacaabo Obama ayaa filimka tirsho ku wantaleysa filimku waa filim xisaab badan muddo fara badan ay filimka la sugay isagoo filimkan markaa hogaamiye ka yahay markaa Nikhil oo markaa filimka ugu dambeeyay kaartiga uu noqday blockbuster weyn soo ganacsi iska tilaabo ku dhawaad 100 karoor hadana filimkan xiddigan ku soo laabanay inkastoo filimka 18 pages uu ka horeeyay filimka kaartiga oo markaa hal sano ka hor filimka lagu dhawaaqay in markaa la duubi doono ama la daawan doono balse filimka dhowr jeer kala duwan ayuu markaa dib u dhacay balse hadda si rasmi ah filimka waxa loo daawan doonaa 3 December halka filimkan uu agaasimay ninka lagu magacaabo Palantir Surya sidoo kale filimkan dhanka muusikada waxa qaracay Gopi Sundar halka filimkan uu maalgelinayo shirkadda lagu magacaabo Gayatri Pictures oo markaa iska leeyihiin ninka lagu magacaabo Allu Arjun Abis ninka lagu magacaabo Allu Arvinda ayaa shirkadda madax u ah filimkan ayaa uu maalgelinayso xiddigan sidoo kale filimkan dhanka rating ama sheekada waxa qoray Sukumar waa ninka lagu gaarin marka sheekada marka la dhaho horena uu sameeyay filimada classic ah hadda Pushpa gacanta ku hayo iyo sidoo kale filimka Allah Fakudul marka hogaamiye ka Allu Arjun la sanadii 2020 ninkan Sukumar wuxuu kamid yahay ratingska ama sheekooyinka dadka qora kuwa loogu jecel yahay haddana filimkiisa Pushpa Part 2 ayuu markaa shaqo ahaan wada filimkana sheekada wuxuu qoray ninka loo magacaabo Allu Arvinda oo markaa xushmad badan u hay filimkan iska leh oo markaa Gayatri markaa Pictures filimkan oo maalgelinayso sidoo kale filimka luqadda Telugu ayuu lagu daawan doonaa inkastoo actorkan markaa shacbiyad ku leeyahay dhankaas Tamil waxa laga yaabaa filimkan markaa dhankaas Tamil luqadda lagu codayo kadibna markaa la saaro balse Tamil filimkan weyn soo bixi doona filimka Connect markaa hogaamiye ka tahay Nayatara iyo sidoo kale filimka Lathi oo markaa hogaamiye ka yahay Vishal balse filimkan wuxuu ku eegay markaa sida shacab laga qaaday Telugu oo kaliya waxa laga yaabaa meelo yar markaa laga saaro dhankaas Tamil Nadu sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa laga soo bandhigay shalay gooskiisa oo dhameystiran iyadoo filimkan bishii horaantii December laga soo bandhigay teaser xiiso badan balse hadda filimkan iyadoo markaa filimkan ka harsan daawashada Shamal ayaa markaa waxa laga soo bandhigay gooskiisa taasoo ka dhiganta filimkan in actorka Nikhil Sidaad markaa kalsooni badan ku qabaan teamka filimkan iska leh oo markaa filimkiisa ugu dambeeyay Kartikeya 2 markaa noqday blockbuster haddana labadii hore u sameeyay Kartikeya 2 markaa la isku keenay 18 pages markaa hogaamiye ka yihiin waa Nikhil sidoo kale gabadha lagu magacaabo Obama sidoo kale akhbaaraad kale xiddigtan filimka ee lagu magacaabo Obama waxa uu diyaarsan filimka lagu magacaabo Butterfly filimkan waa filim aad u xiiso badan oo markaa laga daawan doono barta Disney Plus Hotstar laba asbuuc markaa filimka lagu magacaabo 18 pages markuu soo baxo hal toddobaad kadib 9 December waxa uu soo bixi doona filimka lagu magacaabo Butterfly inkastoo laakiin filimka uu markaa 18 pages tiyaatarada u saaran yahay filimkan waxa loo weecay dhankaas OTT-ga ayaa filimkan laga daawan doona wali barta loo yaqaan Disney Plus Hotstar taasoo filimkan markaa heli doono isagoo markaa fasiixa ama OTT-ga lagu soo fasaxi doono sidoo kale filimkan waa filim isku jira shactiro iyo horror ayuu filimka inta u badan yahay sidoo kale filimka shalay wax laga soo bandhigay goos ama teaser oo markaa filimkan u khaasa asxaabta xiddigtan iyo sidoo kale filimka 18 pages ay ku cusub 3 December ayaa la daawan doona 18 pages halka filimka Butterfly aan Obama markaa hogaamiye ka tahay oo markaa la daawan doona 9 December intaas ayaa ku cusub labada filim wixii ka soo kordhana muuqaaladan xilligan ku soo gudbin doona iyo ganacsiga ay sameeyaan filimka lagu magacaabo 18 pages halka filimka lagu magacaabo Butterfly hadii markaa la soo fasiro inii soo dhigi doono groupka Telegramka ku leenahay Faham Entertainment saaxiibada qiimaha badan haddana wax soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Avatar The Way of Water filimkan waa filim ay Hollywood oo markaa laga leeyahay dhankaas Hollywoodka ama Mareykanka ayaa filimka laga leeyahay isagoo filimkan qaybtii labaad oo markaa Avatar oo markaa la daawaday sanadii 2009 ku dhawaad muddo 13 sano filimkan waxa la sameeyay qaybtii labaad taasoo markaa daawadayaashu xiiso badan u qabaan iyo directorka filimka James Cameron oo markaa director laga dambeeyay dhankaas Hollywoodka filmo badan sameeyay kamid Titanic iyo sidoo kale Avatar qaybtiisa hore sidoo kale filimkan xiiso badan aad ay loo sugayaa
sidoo filimkan waxaa soo baxay 16 December ama Jimcaha soo dhaafnay ayaa filimka tiyaatarada saarnay bas waxaa la fiirin doonaa filimkan ganacsiga sameeyay sidoo kale filimka lacagta lagu kharash gareeyay aan fiirino sidoo kale filimkan dadka markaa kasoo muuqan doona noqon lahayd dhanka doorarka hogaaminta oo markaa kasoo muuqan doona Sam iyo sidoo kale xididta lagu magacaabo Zoe Saldana oo filimka tirashada ku mataleysa sidoo kale filimkan box office maalintii koowaad wuxuu kasoo xareeyay ku dhawaad 180 milyan inkastoo filimka laga filayay maalintii koowaad markaa keeni doona lacag ku dhow 200 milyan balse filimkan oo ka bato wuxuu gaaray ku dhawaad 180 milyan isagoo filimkan lagu kharash gareeyay budget markaa 250 milyan ganacsigiisa hadda waxaa ka dhiman 70 milyan oo kaliya lacagtii markaa lagu kharash gareeyay taasna oo hubaan markaa filimka inuu soo xareen doono labada maalmood dhiman Sabti iyo Axad iyo sidoo kale Isniin ayaa filimka laga yaabaa markaa soo xareeyo isagoo maalintii labaad markaa la filayo inuu soo xareeyo ganacsiga ka badan ama soo xareeyo 200 ilaa 210 milyan doolarka Mareykanka inuu maalintii labaad filimka soo xareen doono isagoo markaa filimka ka tilaabi doono budgetka markaa lagu kharash gareeyay inkastoo filimka la filayo in markaa 3 maalmood wareysa Jimcaha Sabti iyo Axad filimkan soo xareyn karo ilaa 500 milyan ilaa 550 milyan waa qiyaasta xilli hore filimka la saadaalinayo inuu markaa ganacsigiisa gaarayo isagoo filimkan la filayo toddobaadka ugu horeeya inuu markaa filimkan ka talaabo ku dhawaad 700 milyan doolarka Mareykanka inuu filimkan soo xareeyo toddobaadkiisa ugu horeeya halka toddobaadkiisa labaad filimka la filayo inuu kor u dhaafo 1 bilyan isagoo filimkan qaybtiisa koowaad markaa soo xareeyo ku dhawaad 2 bilyan iyo 9 ama ku dhawaad 3 bilyan filimkan qaybtiisa koowaad soo xareeyo isagoo filimkaas markaa dhowr jeer kala duwan oo tiyaatar la saaray hadda sanadkan waxa la saaray horaantii ama bishii September ayaa filimkan tiyaatar lagu soo celiyay isagoo markaa filimkan wuxuu sameeyay ganacsi waaliya isagoo filimkan soo xareeyay 100 milyan doolarka Mareykanka isagoo markaa filimkan daawashadiisa ku soo wareegtay 13 sano taasna waxay ka dhigtay filimkan xiisaha loo qabo iyo qaybta labaad filimkan ay sugi laayeen taageerayaasha haddana qaybta labaad si wali ay u gudmaysaa iyadoo la filayo weekendiga in markaa ganacsi fiican sameeyso Jimcaha Sabti iyo Axad saxaabta filimkaasi taas ayaa ku cusub oo markaa James Cameron hogaamiye ka yahay waana qaybtii labaad markaa Avatar 2 oo markaa la daawado sanadii 2009 haddana filimkan waxa la filayaa inuu markaa ganacsigiisa gaaro ku dhawaad 2 bilyan doolarka Mareykanka taasna oo suurtagal sidoo kale filimkan fasaxaya jira markaa December ama 23 December ilaa 30 December fasaxaya jira filimkan wax laga yaabo inuu ka faa'iideysto taasoo markaa ganacsi fiican uu ka sameyn karo dhankaasi Hollywoodka iyo sidoo kale internationalka sidoo kale filimka waxa laga daawan doonaa suuqa ugu weyn markaa China halka filimkan marka hore qaybihiisa laga daawado dhankaasi Ruushka markaa filimkan markaa dagaal ka socda dhankaasi Ruushka oo markaa laga baajiyay qaybta markaa Ruushka balse hadii markaa tiimka filimkan iska leh isla afkartaan dowladda Ruushka markaa in laga daawado dhankaasi Ruushka waa markaas ari kale xiiso badan hadii markaa Ruushka ogolaanayaan hadda filimka ugu dambeeyay markaa dhankaasi Ruushka laga daawado waxa filimka Pushpa oo markaa loo ajan hogaamiye ka yahay waxa la filayaa filimka lagu magacaabo Avatar in markaa laga daawado dhankaasi Ruushka inkastoo dowladda Mareykanka markaa Ruushka markaa xuluf balaaran ka dhaxayso taasna waxa u diidaysaa filimka laga daawado dhankaasi Ruushka oo markaa suuqa labaad markaa laga daawado ugu weyn filimada Hollywoodka saxaabta intaas ayaa ka cusub markaa filimka lagu magacaabo Avatar 2 oo markaa soo baxay December 16 wixii ka soo kordhana waxaanu ku soo gubin doonaa muuqaalada xiga fadlan wali hadii aad muuqaalka leeg noo saar ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badantana barnaamijkan waxa ku soo gabagabeynaynaa filimka lagu magacaabo Fad filimkan waa filim aad u xiiso badan markaa ku soo laabanaya ninka lagu magacaabo Ratish Tashmukh tan filimkiisa Balan markaa laga daawado OTT-ga bas hadda xidigan wuxuu rabaa filimka inuu markaa tiyaatarada saaro filimkan waxa ku weelaysa gabadha lagu magacaabo Ganela Dusasa oo markaa xaaska u dhaxday ninka lagu magacaabo Ratish Tashmukh lamaanta filimkan si rasmi ah filimka uu matalisa waana filim xiiso badan halka ay magastarka caanka Salman Khan filimkan muuqaal martiyo ku leeyahay ama heeska la kacsan oo filimka ku jira markaa filim actorkan ama Salman Khan ka soo muuqan doono heeskan waxa soo dhigay barta Instagram ku leeyahay Salman Khan heestan markaa ku dhawaad one day ayaa filimka waxa markaa dhankaas Instagram ka daawatay ku dhawaad 3 milyan taasoo ka dhigan tahay Salman Khan inuu filimkan kala kicin doono oo markaa daawada fara badan filimkan heli doono inkastoo filimka markaa lagu daawan doono luqadda Marathi ama dhankaas gobolka Maharashtra ayaa filimka laga daawan doonaa waana filim goboleed sidoo kale filimkan waxa laga soo minguuriyay ama waa remake waxa laga soo minguuriyay filimka Majli oo markaa daawad sanadii 2019 markaa ku xarkay ninka lagu magacaabo Jantalia iyo sidoo kale xaaskiisa Samantha Prabhu filimkan waa filim markaa loogu talagalay qoysaska oo markaa qaybta hore waxa hogaaminaya Jantalia xaaskiisa haddana qaybta waxa markaa hogaaminaya ninka lagu magacaabo Ratish Tashmukh iyo xaaskiisa Ganesh aan la hadlay Ganela D'Souza taasoo ka dhigan tahay filimkan markaa isla yihiin dhinac kasta laga fiiray noqdo sheekada iyo sidoo kale asalka sheekada markaa ah laba qof markaa nolosha dhabta markaa lamaana ku ah iyo sidoo kale nolosha jiliinka filimkan markaa lamaana ku matalaya
sidoo kale filimka sheekada hore u daawana waa Manjiri 2019 kaasoo naga Tanzania marka filimka aad u xarakay filimka uu noqday filim super hit isla filimka ayaa filimka isagoo waxa la qaatay Marathi marka luqadda Marathi lagu daawan doona oo marka dhankaasi gobolka Maharashtra laga hadlo filimka sheekadiisa hore ay warhayaan ninka loo magacaabo Ritesh Deshmukh xukuumadda marka nin marka noloshiisa marka Soomaali jacayl taasoo markaas gabadha aabaheed marka uu ka fogeynayo oo marka magaalada kale u dhigay nin kale ku darayo isagoo marka ninka loo magacaabo Ritesh Deshmukh marka gabar kale lagu darayo doorkaasna waxa qaadanaysa gabadha lagu magacaabo Kanela Deshmukh kadib marka dhowr sano kadib waxa uu imaanaysa marka gabadhii hore jeclaayeen gabadheeda ayaa marka waxa la keenay meel marka uu cricketka marka uu macallin ka yahay kadib halka waxa kula kulmay gabadha aabaheed marka hore marka uga fogay xilligan aan iraahdo ninkan kadib marka halka waxa uu sheegay marka gabadhu marka uu jeclaayo gabadhan aabaheed marka inay dhinteen taasoo marka ku kalifaysay gabadhii yareed marka inuu karsado oo marka xaaskiisa Kanela Desusa filimkan loo daawan doono labada marka la isku daray noloshooda sidoo kale nolosha hore marka uu ka fikirayo saxaabta filimkaas waa filim classic oo marka la daawo sanadii 2019 ayaa dib loo sameeyay waxa loo bixiyay magaca Fed waxa marka hogaamiyaalka Ritesh Deshmukh sidoo kale Kanula aan iraahdo Kanela Desusa sidoo kale filimkaas Salman Khan ay special appearance ku leh halka filimkan uu sameeyay ninka lagu magacaabo Ritesh Deshmukh isaga ayaa filimkan director-ka waxa la daawan doonaa December 3 ayaa filimka la daawan doonaa wuxuu ka faa'iideysan doonaa fasaxa cusub ee marka sanadka 2023 ayuu rabaa xidigan inuu ka faa'iideysto halka filimkan uu marka 3 December loo calaamadeeyay filimka KCK Baijan oo marka hogaamiyay ka Salman Khan sidoo kale booskan waxa kale filimka lagu magacaabo Fed halka filimka Salman Khan loo dibdhigay ciida 2023 ama 3 Abriil 2023 ayaa filimka Salman Khan la daawan doonaa saacada filimka Fed intaas ayaa ku cusub waxay ka soo korana muuqaaladan xigan ku soo gubin doonaa fadlan haddii aad muuqaalka ka heshay like noo saar waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.